Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kulanti wanaagsan dhammaan dadka ku xiran janaalkayga Cabdifataax Tube. Waxaa la bixiyay abaalmarinadii ay xiriirka sanadkani ee markii ugu horeysay ay qabanayaan oo abaalmarinadaasi ay kala ahaayeen taasoo loogu magac daray Somali Football Award 2019. Waxaa la bixiyay abaalmarino kala duwan. Waxaa la bixiyay ciyaaryahanka ugu wanaagsanaa ee 2019. Waxaa qaatay ciyaaryahan Xasan Cabdinuur Geesi Xasaasi kaasoo abaalmarinta ku garaacay ciyaartooy ay ka mid yihiin Siciid Yamani iyo sidoo kale Anwar Shakunda. Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Mudane Cabdiqani Saciid Carab ayaana guddoonsiiyay ciyaaryahanka kooxda horseed ee ninka lagu magacaabo Xasan Cabdinuur Geesi Xasaasi. Si la mid ah ciyaaryahanka lagu magacaabo Anwar Shakunda ayaa ku guuleystay goolka ugu quruxda badnaa ee sanadda 2019 ee soo ilaatay, wuxuuna ciyaaryahankaasi ku garaacay dhowr ciyaartooy. Anwar Shakunda ayaa la siiyay abaalmarinta xiddigii ku guuleystay goollalinta horyaalka Soomaaliya oo goollalinta horyaalka Soomaaliya Premier League. Xiddigan ayaa la xusuustay inuu gool ka dhaliyay dalka Zimbabwe kulankii ka tirsanaa tartankii Isreebka Koobka Adduunyada. Siciid Yamani oo goolaha kooxda MCC ayaana loo magacaabay goolahii ugu fiicnaa sanadkii dhammaaday, wuxuuna bandhig cajiib ah oo halkaasi kasoo sameeyay kooxdiisa iyo xulka qaranka Soomaaliya tartankii Bariga Bartamaha Afrika. Ugu dambeyn goolaha ugu fiican ayaa la siiyay laacibka xulka qaranka Soomaaliya. Waxaa loo doortay ciyaaryahanka ugu wanaagsan xulka qaranka Soomaaliya ciyaaryahankii goolka ka dhaliyay xulka Burundi Cumar Cabdullaahi Maxamed lambarkii 10aad ee xulka, waxaana la siiyay abaalmarin cajiib ah. Si la mid ah waxyaabaha la bixinay waxaa ka mid ah goolkii ugu fiicnaa waxaa la siiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Cabaas Amiin Mohamed ayaa la siiyay. Waxaa sidoo kale la bixiyay xiddiga ugu fiicnaa ciyaartooyda qurbaha ka timid ee ka ciyaara horyaalka dalka, waxaana la siiyay ciyaaryahanka MCC oo ciyaara ninka lagu magacaabo Faysal Axmed ayaana la siiyay. Daafici ugu fiicnaana waxaa la siiyay Cabdiweli Ibraahim Aweli oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Dekedaha ayaa la siiyay. Si la mid ah waxyaabaha la bixiyay waxaa ka mid ah wariyihii ugu fiicnaa Maxamed Cabdimuudi oo ah agaasimaha TV-ga Stan Sports ayaana ka mid ah. Si la mid ah taageeraha ugu fiicnaa ayaa la bixiyay. Taageeraha koowaad waxaa loo doortay Dalmar Cadow Maalin oo ah wiil dhalinyaro ah oo aragga naafa ka ah, wuxuuna ku faraxsan yahay inuu yahay taageerihii kubadda cagta. Waxaana loo doortay in la siiyay xushmad abaalmarin cajiib ah iyo lacag ayaa la siiyay. Garsoorihii ugu fiicnaana waxaa la siiyay garsooraha lagu magacaabo Xasan Maxamed aad u taqaana Xasan Baare ayaa la siiyay kaasoo bandhig cajiib ah soo sameeyay tartanka FIFA-na. Si la mid ah oo Sekafa iyo FIFA-ba oo kasoo muuqday garsoore Xasan Baare wuxuu qaatay garsoorihii ugu fiicnaaba sanadkii dhammaaday 2019. Dhammaan ayaa la wada bixiyay. Daafici ugu fiicnaa, goolahii ugu fiicnaa, weeraryahanka ugu fiicnaa, goolka ugu fiicnaa, ciyaaryahanka ugu fiicnaa, xulka qaranka ciyaaryahanka ugu fiicnaa ayaa dhammaantooda la bixiyay. Haddaba sidee kula tahay Xasaasi inuu ku guuleysto ciyaaryahanka ugu fiicnaa 2019?